Thaabit bin Nucmaan waxa uu ahaa wiil dhalinyaro oo alla ka cabsi badan cilmigana dalbada. Wakhtiga badan ayuu isagu siiyey, laakiin faqiir buu ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah gurigiisa ayaa ka soo baxay isagoo aad u gaajoonay, waxaana uu waayay wax uu cuno. Waddadiina waxa ay ku dhammaatay beer aad u weyn. Beertaa waxa ku yaalay bustaan uu ka buuxo geedaha tufaaxa. Geedaha tufaaxa mid ka mid ah ayaa waxa uu soo laalaadiyey xabad tufaaxa, naftiisa ayaa damacday xabadda tufaaxa. Gacanta ayaa uu u fidiyey, uuna soo goostay, badhna uu ka cunay. Biyana waxa uu ka cabbay webi garab marayay beerta. Mar dambe ayaa uu ka toosay moogsanaantii ay ku sababtay gaajadu, waxaana uu naftiisa ku yidhi, hoggaaga inaan Nucmaanow, sidaad u cuni, dad kale waxay leeyihiin adiguna weydiisan. Waxaana uu ku dhaartay inuuna meesha ka socon ilaa uu helo ninka beerta iska leh si uu ugu xalaaleeyo inta uu ka cunay tufaaxa. Dadkii buu weydiiyey ilaa loo tilmaamay ninka gurigiisii. Albaabkuna ku garaacay, waxaana uu soo baxay ninkii beerta iska lahaa, waxaana uu weydiiyey waxa uu rabo. Thaabit baa waxa uu yidhi, bustaankaaga ayaan galay, waxaanan ka qaatay xabaddan tufaaxa, waxaanan ka cunay badh. Waxaanan xasuustay inaan anigu lahayn, waxaanan kaa rabaa inaad iga raali noqotid intaan cunay oo nad iga saamaxdid khaladka aan galay. Ninkii beerta lahaa ayaa waxa uu yidhi, ilaahay baan ku dhaartay, weligay ku saamixi maayo, iska dhaaf intaas, ilaahay agtiisa aniga ayaa ku ashkataynaya. Ninkii dhalinyarta ahaa ee ilaahay ka baqay baa bilaabay inuu ooyo oona baryo ninka si uga dhaafo. Waxaana uu yidhi, waxaan diyaar u ahay inaad shaqo walbood ii dirtadaan qabto si aad igu dhaaftid. Uuna baryayay ninka bustaanka iskale. Ninka bustaanka iskalena waxa uu kasii qaaday adayg. Ninkii bustaanka iska lahaa uu ka tegay ninkii dhalinyarta ahaa, ninkii dhalinyarta ahaana uu raacay ilaa ay gurigiisa la galeen. Thaabit gurigii waa hor fadhiyey, waxaana uu sugayay ninka beerta iskale ilaa salaadii casarka. Ninkii beerta lahaa markii uu soo baxay, waxa uu arkay wiilkii oo meeshii taagan oo ilintii intay garhkiisa qoysay ay wejigiisa nuuru biirisay. Thaabit waxa uu yidhi, adeerkayow, waxaan diyaar u ahay inaan beerore ka noqdo bustaankaaga, inta noloshayda ka dhiman anigoona mushqaayad kaaga rabin ilaa inaad isaamixda maahine. Ninkii beerta lahaa waxa uu ku yidhi, anigu diyaar baan u ahay inaan ku saamaxo. Shardiga kale tan kugu xidhayaana waxa weeye inaad inta guursatid. Thaabit inta uu yaabay uu amakaagay ayaa uu fahmi waayey sababta shardiga loogu xidhay. Ugu dambayn waxa uu yidhi, waan guursanayaa. Ku yidhi, inantaydu way indhalaadahoo ma aragto, way aflaadahoo ma hadasho, way dhegalaadahoo waxba ma maqasho, sanadana waxaan u raadinayay wiil guursado aan ku aamino oo ku aqbala tilmaamaha ay leedahay ee aan kuu sheegay. Haddii aad ogolaatid waa aan ku saamaxaya. Thaabit waa uu yaabay, mar labaadna fajiciisay ku noqotay. Waxaana uu ka fikiray sidee buu ula noolaan karaa gabadha tilmaamaha leh, gaar ahaan isagoo ku jira xilligii dhallinyarnimada, oo sideeba ay ugu qaban kartaa arrimaha uu u baahan yahay iyadoo xaaladdaa ku sugan. Thaabit waxa uu bilaabay inuu ka fikiro sidii uga baxsan lahaa dhibaatadan haleeshay. waxaana uu ogaaday in gabadhan lagu imtixaamo ay ka khayr badan tahay inuu jahannama uu dhex fadhiyo abaalmarin intii uu ka cunay tufaaxa. waa uuna ogolaaday inuu gabadha guursado oo ilaahay ajar kaga dalbo. xaggii odayga inta uu dhaqaaqay ayaa uu ku yidhi, waa aan aqbalay in aan inantada guursado, ilaahay baan ka baryayaa inuu niyaddayda abaaliyo. ninkiiba beerta lahaa waxa uu ku yidhi, ballantaadu waa maalinta khamiista soo socota, gurigayga casuumadaada anaan kafaalo qaaday gabadhayda meherkayga. maalintii khamiistii markii la gaadhay, Thaabit baa yimid isagoo aad u murugaysan oo la mid ahayn qeyrkii marka ay guursanayeen. waxaana uu isweydiiyey seeba aan ugu gali karaa gabadh aan i arkaynin, aan i maqlaynin. laakiin waxaasoo dhan ha ahaatee ilaahay buu tala saartay, waxaana uu yidhi, laa xawla walaa quwata ilaa billaah. markii uu yimiday albaabkuu soo garaacay, waxaana ka furay aabbaheed. odaygiibaa waxa uu ku yidhi, wiilkaygiiyow, u soo gal gabadhaada, ilaahayna ha idin barakeeyo. gacanta ayaa uu qabtay, waxaana uu geeyey qolkii ay gabadhiisu fadhiday. albaabkii markii uu furay, waaba gabadh soo kacaysa oo leh, assalaamu calaykum. Thaabit isagoo milicsanaya oo yaaban buu eegay. waaba inuu hor joogo xuuralacayn ka mid a xuuralacayntii jannada oo dhulka u soo degtay. welibana fahmila waxa uu arkayo, aanan garanayna waxa dhacaya, aabbaheedna muxuu hadalkaa ugu yidhi. gabadhii inta ay fahantay ayaa ay u tegtay, waxaana uu u sheegay wuxuu aabbaheed u sheegay isaga. waxayna ku tidhi, aabbahay run buu kuu sheegay, beenna kuuma sheegin.
aabbahay waxa uu iga yidhi inaan waan aflaayahay afkayga waxun kama soo saarin, waan dhagalaayaho dhagahaygaasi waxun ma maqan, waan indhalaayahayo waxun indhahaygaasi ma arag. Aabbahayna keligii baa uu ii dhalay, sannadana waxa uu ii raadinayay wiil fiican oo uu ii guuriyo. Markaad adigu u timiday aad ka dalbanaysid xabad tufaaxa ood cuntood welibana ku ooyeysid, aabbahay waxa uu yidhi qofka ka baqaya xabad tufaaxa uu cunoon u xalaal ahayn, waxa uu ilaahay kaga baq gabadhayda, anigu waan ku badhaadhay, guurkaaga aabbahayna ha ku badhaadho nasabkaaga. Gabadhii sanad kadib waxay dhashay wiil ka mid ah inta tirada yar le ummaddan soo martay, waxaana uu ahaa alimaam abu xaniifa annucmaan, ninka iskale habka fiqhiga ee caanka. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.